Assalaamu calaykum walaalayaal soo dhawaada asxaabay fiidiyowan dhexdiisa waxaan ku qaadan doonaa 10 su'aalood oo diiniyan ah insha Allah waxaan jeclahay inaad ka faa'iidi doontaan midda koowaad haddii aad nagu cusubtaa fadlan subscribe inoo saar sidoo kale like-ka nagu caawiya haddii aad ka heshay kusoo dhawaada su-aasha koowaad waxay leedahay waa maxay ajirka uu leeyahay qofkii 40 maalin jamaaco ku tukada asagoo kasoo gaaraya ragcadda koowaad waxaad jaanis u haystaa fiidiyowga istaaji kana jawaab su-aasha waxaa loo qoraa laba inuu beri inuu ka yahay naarta sidoo kale nifaaq inuu beri ka yahay su-aasha labaad tumay ahayd mid uu Allah caradeeda ka caroonayay raalli ahaashadeedana raali ku ahaanayay jawaab waxay ahayd sayidatu faatima binti rasuulillah sallallahu alayhi wasallam gabadhii nabi sallallahu alayhi wasallam su-aasha saddexaad waa kii qofkii u horreeyay ee ka soo haajiray ehelkiisa markii laga reebay nabi luut calayhi salaam waatan jawaabta waxay ahaayeen Cuthmaan bin Cafaan iyo xaaskiisii Ruqiya ay ahayd gabadhii nabi sallallahu alayhi wasallam su-aasha afaraad kumuu ahaa midkii u horreeyay qoray taariikhda hijriga jawaabtu waa sayidkeena Cumar bin Khattab Allah raali ka ahaadee su-aasha shanaad laga wareejiyay qiblada Masjidul Aqsa oo loo wareejiyay Masjidul Xaraam waatan jawaabta waa qaswadii Badr intaysan dhicin bishii Shacbaan sanadii labaad ee hijriga su-aasha lixaad waa maxay maraatibta diinta ee saddexda ah jawaabtu waa midda koowaad islaam midda labaadna iimaanka midda saddexaadna ixsaanka su-aasha toddobaad yaa baray nabi sallallahu alayhi wasallam si loo weysaysto waa maxay sidoo kale salaadii u horreysay ee nabi sallallahu alayhi wasallam lagu waajib yeelo waatan jawaabta wuxuu ahaa jibriil calayhi salaam salaadii u horreysayna waxay ahayd duhur waxaana tujiyey jibriil nabi sallallahu alayhi wasallam su-aasha sideedaad kuway ahaayeen mu'adiniintii xilligii nabi sallallahu alayhi wasallam aadaami jiray jawaabtu waa bilaal bin rabaax cabdullaahi ibn maktuum buu maxduur allah ka raali noqday dhammaantoodaba su-aasha sagaalaad waa kuma saxaabigii nabi sallallahu alayhi wasallam uu siiyey furaha kacbada markii ay furteen maka waatan jawaabtu wuxuu ahaa Cusmaan ibn Talha Allah ka raali noqday su-aasha tobanaad waa maxay ajirku helaya qofkii dhaha bismillaahi alladhi laa yadurru maca ismi shay'un fil ardi walaa fis samaa wa huwa as-samii'ul 'aliim jawaabtu waa waxay ka ilaalinaysaa wax walba oo dhib ah sidoo kale geerida kusoo boodka wax dhibayana ma jiro asxaabay waxaan gaarnay meeshii ugu dambeysay fiidiyowga waxaan filayaa wax badan inaad ka faa'iideen aadna ku raaxaysateen hilmaamin inaad la wadaagto walaalahaaga si ay uga faa'iidaystaan ajirkana ay kula qaybsadaan مع السلامة.